dufcaddii 16aad oo ka qalin jabisay maxadka Al-Furqaan ama mu'assasada Furqaan ee magaalada Laascaanood ayaa waxa ay maanta ku qalin jabiyay 181 arday kuwaas oo bartay culuumta shareecada islaamka. munaasabadii ay ku qalin bedelanayeen ardaydaasi ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka SSC Khaatumo, golaha dhaqanka oo ugu horeeyo Garaad Jaamac Garaad Cali Garaad Jaamac, culimada magaalada Laascaanood iyo waalidiinta dhashay ardaydii qalin bedelinaysay. maxadka Al-Furqaan ayaa waxaa la aasaasay sanadkii 1994 iyadoona muddo sanado ah u xidhnaa, waxaana dib loo furay sanadkii 2006. maxadkan ayaa waxa uu soo saaray arday tayo kuwaasoo iyagu qayb weyn ka qaata fidinta diinta islaamka. maxadkan ayaa waxaa aasaasay isla markaasna dhidibada u taagay Allah u naxariistay Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed aw Yuusuf oo isagu ah sheekh beledkii deegaanada SSC Khaatumo, kaasi oo magaalada Kismaayo ee caasimadda maamulka Jubbaland qarax loogu dilay. guud ahaan dadkii ka soo qayb galay munaasabadaasi ardaydu ay ku qalin bedelanaysay ayaa iyagu si weyn ugu duceeyay in Allah uu naxariisto Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed aw Yuusuf. geesta kalena waxaa si gaar ah ugu duceeyay Garaad Jaamac Garaad Cali Garaad Jaamac, isinka guud ee deegaanada SSC Khaatumo.